بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. maanta waxaan rabaa halkan inaan shir jaraa'id aan ka jeediyo oo isugu jira laba qodob ka kooban. qodobka koowaad oo ah caddayn ama bayaanin, qodobka labaadna oo ah cambaareyn. haddii aan ku hormaro qodobka koowaad, waxaa maalmahan oo dhan baraha bulshada laisla dhex wareegayay oo meel kasta lagu hayay oo falcelis toban iyo mid togan intaba ay iga soo gaareen khudbad aan ka jeediyey hadda ka hor waddanka Jarmalka oo aan uga hadlay kaalinta siyaasadda ay ku leeyihiin dumarka. falceliskaas waxaa ka yimid dad badan oo si wanaagsan oo niyasami leh fahamkayga hadalka jeedinteydii faham qaldan ka qaatay iyo kuwo si siyaasadaysan u isticmaalay. labadaas qolo ayaa ka falcelisay. waxaan rabaa marka inaan dul istaaga arrintaas ayada ah. kow, haddii aan ahay cabdiraxmaan cabdishakuur sideeda qofka hogaamiyaha ah sidiisaba waxaa saaran hadal uu jeediyey haddii ay ka timaado dhaliil ama faham darro amase dadku ay qoonsadaan inuu ka bixiyo caddayn, waa waajib qof kasta hogaamiyaha saaran. sidaas daraaddeed waxaan halkan ka caddaynayaa qoraal aan shalay soo dhigay barteyda facebookana aan ku caddeeyey in axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam nabigeena maxamed ah sala allahu calayhi wasalam ka soo aroortay ee saxiixa ah inay madaxa ii saaran tahay, inaan aaminsanahay inay tahay masdarka labaad ee tashriica shareecada islaamka inay tahay markii laga soo tago qur-aanka, inaan ku qanacsanahay, inaan aaminsanahay. labo, inuusan jirin xadiis mucayan ah oo saxiix ah ama xadiiska la isla dhex maray ee nabiga laga wariyey oo abi saciid alqudriy uu ka wariyey inaan aaminsanahay inuu yahay xadiis saxiix ah sidoo ugu soo arooray sunanta saxiixan aan u aaminsanahay yahayna xadiis saxiix ah oo aan aaminsanahay oo aanan wax dooda ama wax inkiraada ama wax murana ama wax shakiya oo iga jirin. laakiin khudbadeyda waxaan uga hadlay ay ahayd fahamka ama fasiraadda laga qaatay xadiiska oo la leeyahay dumarka caqligooda iyo diintooda ayaa nuqsaan ah. fasiraaddaasna aniga uguma horreynin, culamo badan oo islaamka ah ayaa u fasirtay siduu nebiga calayhi salaatu salaam ula jeeday oo ahayd inuusan marna nebiga u jeedin in uu gabdhaha muslimka ah ama dumarkaba guud ahaan inuu xaqiro diintooda iyo caqligooda. marka waxa anigu aan dhaliilayay ma ahayn jiritaanka xadiiska, ma ahayn xadiiska inuu sax yahay, waa fahamka ay ka bixiyaan culammada qaarkeed ayagoo ku abiyuus garaynaya ama ku takrifalaya ama raba inay afjigaan hoosna u dhigaan kaalinta dumarka ay ku leeyihiin bulshada guud ahaan iyo siyaasadda. waxaan kaloo sheegay inay jiraan xadiisyo boqolaal ah oo daciif ah oo qaarkood mawduuc yihiin oo qaarkood israa'iiliyaad yihiin oo lagu dafiro xaqiiqa dumarkan inay jiraan laba qof oo isku diidan inay jirto ma filaayo. marka siday u caddaato arrintaas wax haba yaraatee mugdi igama jiro saxiixnimada xadiiskaas. waxaanse dooda ka keenay waa sida ma loo fasiraayo iyo macnihiisa ee loogu awood sheeganayo ama loogu takrifalayo haweenkeenna muslimka ah. taas waa midda aan caddaynayo oo qof kasta oo arrintaas mugdi ka galay oo dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inta niyadda fiican iyo inta niyadda san mowqifkaas waa mowqif cad, ku noqoshona ma laha, waana muuqataa. mowqifkaygana waan ka caddiyay arrintaas. waxaan u gudagelayaa qaybta cambaareynta. waxaan arkay baraha bulshada dad ka falceliyey arrinkaygii ama hadalkii la wareejiyey ee sida xun loo fasiray. dadkaas waxay isugu jiraan laba nooc, laba qolo oo culummo sheegata. culummo sidoodaba argagixiso ah oo aaminsan dadka muslimkaa dhiiggooda inuu bannaan yahay, in la gaalaysiiyo, in la dilo, taariikhdoodana ay caddahay, meelna ay taallo oo aysan mugdi ku jirin. kuwaas waxay igula dagaalsan yihiin, waa la yaqaanaa khudbooyinkayga iyo muxaadarooyinkayga iyo hadal jeedintayda inaan diinta
iyo xadiista nebiga iyo ayadaha qur-aanka aan u isticmaalo qof soomaaliya mugdi uga jirto ma jirto, laakiin waxay diidan yihiin wejiga wanaagsan ee naxariista leh, ee turidda leh, ee dulqaadka leh, ee wada noolaashaha leh, ee samafalka leh, ee ixsaanka leh, ee islaamka uu leeyahay aan soo bandhigahay ugula dagaalsan yihiin. waa kooxaha argagixisada ee dalkeenna ka jira iyo dadka hogaamiya. kuwaas marka dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan dagaalka ayaga naga dhaxeey inuu yahay dagaal ku wajahan diinta islaamka iyo fasiraadeeda. waxaa kaloo dagaal soo qaaday culimo ku jirta bayrolka dowladda oo mishaarka dowladda qaadata, oo dowladdu ay mishaar siiso, dowladdani usoo isticmaashay in kala aragti duwanaantii siyaasadeed ee anigii iyo ayaga naga dhaxeeyey inay usoo isticmaalaan culimmadaasna waa la yaqaanaa meelahay degan yihiin, cidda biisha dowladdu si u isticmaasho dadka Soomaaliyeed waa og yihiin, arrintaasna kama qarsana. culimmadaasna horaan u sheegay, culamaa usulta la yidhaahdaa, markaas ninkii xukunka joogay u shaqeeyaan, mishaarka uu siiyeen ugu shaqeeyaan, qoladaasna dowladdaa soo adeegsatay oo soo isticmaashay. marka isbahaysiga ka dhexeeya culamaa usulta iyo culammada argagixisada iyo irhaabka, dagaalkaasna dhinacaas ayuu ka yimid oo laga soo qaaday. waxaa kaloo jira dowladda federaalka ah, waxaan ognahay inay isticmaashay argagixiso. waxaan ognahay hadalkii wadaadkii argagixisada ahaa ee argagixisada ugu xirnaa shalay uu jeediyey oo aniga dhiiggayga xalaaleeyey oo gaalnimo igu xukumay. waxaan ognahay hay-adda nabad sugidda inay ka dambeysay abaabulkiisa. waxaan ognahay asagoo jiran in kaniini la siiyo la soo kiciyey. waxaan ognahay shakhsiyaadkii u tegey iyo ciddii abaabushay. waxaase ayaan darro ah dadkii shacabka Soomaaliyeed ay ku aamineen xukunka talada dalka, beesha caalamkana ay taageer siinaysay, inay maanta isticmaalayaan argagixisadii dadkan laysay, ay siinayaan mimbar iyo meelay uga khudbeeyaan oo nacaybkii iyo karaahiyadii iyo argagixisnimadii ay ka sii wadaan, inay dowladdeennii ka shaqaynayso. dad badan baa horey dowladdu ugu tuhunsanaa inay argagixisada la shaqaysato oo ay gacan siiso oo ay siyaasadda u isticmaasho oo ay dad ka soo horjeeda u adeegsato. laakiin maanta dowladda waxay isku caddaysay inay argagixisadii ayada ay isticmaalayso, lacagteeda ku bixinayso, baraha bulshada howlwadeenadeeda iyo dadkii taageerayaasheeda ahayd kilibtii ninkii argagixisada ahaa wareejinayaan, oo loogu talagalay in lagu faafiyo messajkaas. oo dad badan oo ayaga kamid a taageerayaashooda oo Yurub iyo North America jooga oo dimuqraadiyadaas iyo wanaaggaas ku nool iyo argagixisa la-aanta ah ay messajkaas faafinayaan. waan ognahay shakhsiyaadka hay-adda nabad sugidda ah ee wadaadka isku fikirka yihiin oo la yaqaano oo dadka Soomaaliyeedna u cad, iyo kuwa adeegsaday iyo kuwa isticmaalayba. waxaan la tiigsan doonaa sharciga Soomaaliya iyo sharciga caalamiga ah intaba. marka waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo inay dowladdeennii isticmaalayso argagixiso. dadkii dhagaysanaya waxaan ugu baaqayaa, u sheegayaa dagaalkaas igu wajahan inuu yahay dagaal ka yimid argagixiso iyo culimo u shaqaysa dowladda. anigu waxaan ahay nin ku jira tartanka siyaasadeed ee Soomaaliya, hogaamiye xisbi ah, ma ihi nin isla weyn, ma ihi nin kibir badan, ma ihi nin taladii loo soo jeediye diidan. waxaan ahay nin diinta islaamka 25 sano ka badan barashadeeda ku jiray, ima haysa aqoon la-aan diineed. sidaasay tahayna anigu ma ihi haddii la yidhaahdo ittaqillaahu ninay qabanayso ciza, wa idaa qiila lahu ittaqillaha akhadatu lcizatu ku ilaah yiri ma ihi. ittaqillaha qof kastoo yidhaahdo oo muslim ah waan ka aqbalsanahay. ilaahay u toobakeen qofkii yidhaahda yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila llahi towbatan nasuuxana la yidhi. dadka mu'miniinta ilaahay weydiisa inay mar kasta toobo keenaan. nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam, maalintii waxaan toobo keenaa 100 jeer ka badan ee toobo keena. wax dhibaataa iguma hayso inaan tawaaduco oo dadkayga aan usoo dego, laakiin dadkayga waa inay kala gartaan cidda aan isdirirsannahay oo argagixisaday culamaa sultada ah iyo dowladdiioo labadii soo isticmaashay, oo waddo kasta ay doonayaan inay igu caburiyaan, sumcaddayda ku dilaan, ay igu dhaameej gareeyaan, ay dhibaato igu geystaan maraya, iyo inaan kala ogaano maaragtay xaqa iyo wanaagga iyo baadilka aan kala ogaano. waxaan ugu dambeyntii sheegayaa fadwadaas oo soo saaray wadaadkaas argagixisada ah, maadaama dowladda ay faasiliteed garaysay oo ayada ay fududaysay, wax diidaya ma laha inay berri soo abaabusho dilkayga aniga, iyadoo dhahaysana fadwada ninkaasaa lagu dilay. sidii shalay dhacday oo wadaadkii suufiga ahaa kaalkacyo lagu dilay, fadwo ka timid culamaa usulta ayaa wadaadkaas lagu dilay. waxaa dilayna shabaabay ahaayeen, shabaabka iyo kuwa meesha joogana waa isla shaqeeyaan.
mas-uuliyadda dowladda ayadaa qaadaysa, ayadaana ka mas-uula wixii dhib soo gaaraa hoggaanka xisbiga wadajir iyo aniga shakhsiyan. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.